muuqaal kan xasaasiye ayuu leeyahay waa reaction waana ku soo dhawaataan waan islaam meel walba joogtaan nabad ku waara waxaan reaction ka sameeynaa Daahir Calasow waa kodo jir wax yaqiisa ka hadlaaya yaabka aniga igu yaabka badnaa waxay tahay Soomaali marka joogay xoolaha markii la keenay iswiilada lagu gaday dad kale iibsanayaan waxa dhig jiray kan waa buuran yahay waa lacag badan yahay kan waa yar yahay oo caato oo lacagtiisa hoos ay tahay sida ay u kala fiican yihiin ay u kala lacag banaayeen mise u kala cayilan yihiin Daahir Calasow wuxuu sheegay bariga dhageysta waan dhex geli doonaa waxa marka naado waa kana kaaban oo buuran naado waa kuuskuusan oo qaarkood weyn inta markay taagan tahay anigu ma arkay qurux marka ay yiraahdo naado qurux badan laakiin naado waa gabar cod macaan naado aftahan intaas ba ma taqaana waa waxaan garan kara laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed ee gabadha reer Suudaan le waa qof qurux badan iyo ma la qabaa iyo garoob miya iyo waa ka helay iyo jaceylkeeda laba bilood wariyaa hadda korban ishe bala buuf ninkan anigu ka hadlaaya Daahir Calasow wax ka qaldan yihiin oo sidaan caadi ku ahayn muuqaalkan ayaan soo daayay dadku ima aaminin saraakiisha Soomaaliya joogtay Amazon loo yaqaan Uganda ka socda gabdhaha mootooyinka loogu geeyo Daahir Calasow ayaa isku xira muuqaalkan markaa soo deynayay intiin badan way aamintay dad baan aaminin hadda dadka Soomaaliya inay ku waana qaadan doonaan hadduu waxa sameeyay lahayn kan kuma dhiiran lahayn waana waxa leeyahay gabdhaha Soomaaliya hadda Daahir Calasow wuxuu ku hadlay dhigayso kartuun muuse ka hor marka aragto inta dhir la eg tahay iyo sidoo ogtaa joogi jamaalka Ilaahay iyo quruxdeeda kartuun muuse marka aragto ka hor haye marka aragto ka hor tusmo Yoonis isbarbar tusmo Yoonis gabadha saa u dheer siista ma taqaana kaliya sidoo eg tahay wada Soomaali waxa ku amaada ninna caadadiisa kama tago bahan lahe cayrinka ma daayo Daahir Calasow caadadiisa waxaan hore u soo bartay live-ka iyo maxaa la jiray videogan hadda uga hadlaa soo daawateen dhexdiisa waxaan uga hadlay Daahir Calasow inay xidid yihiin madaxweynaha Uganda shalay muxuu dhahay madaxweynaha Uganda la kulmaayay Daahir Calasow muxuu u xiran yahay Uganda maxaa baray Uganda asagoo shakhsiya dawlad iyo wadan dhan sidee ayuu madaxdooda ula socdaa waxaad isweydiisaa sometimes Daahir Calasow waa shakhsi ما هن دولد سيدبو حرير وليه شيء دولد يوغندا محاسة كلا براي وحا أركز أسوأ كشيء كينايا سراكيش وقصة الرسول مقعيدو دي سيد دولد وقصة قيصة وحاسب السيد تم اسكوبرتين ناس Soomaali كاها قبله وحتى نتيلاون على السيد حاس كيس يرد وكان نتي واحد دماري وجرسدي سراكيش وقصة الرسول نكمل ده ودق يوغندا نكمل نتي قبلها Soomaaliya أدربوها Daahir Calasow حاس كيس وكان نتي Daahir Calasow eedadiis iyo ninka sarkaalka ee waddanka Uganda ayaa kala baray waxaan ii sheego waa inaad si fiican u qaadataan ya bila makab soo agta fiir tusmo Yoonis ya bila makab wada garas fiir soo agta way agabdaha Soomaaliyeed oo amaan laada way agabdaha Soomaaliyeed quruxda baa oo bumbun laada oo quur laada way ina amaanta ay kugu bixeen naag ajnabiga soo taamicneeda ma aha kalluunka badda ku jira jecesha kalluunka la keenay oo gasaacaysan abitaanka soo fresh horta lagu sameeyo qaraha haysto oo babayga haysto oo mooska haysto oo baddi iyo bariga iyo webigi inta wasuka ag yaalaan Soomaa waxa u jecesha wax laga keenay nin jooga Malaysia oo Soomaaliyeed oo waliba nin da'ada Daahir Calasow kala ah ayaa la soo xariiray wuxuu ii sheegay malaygan iyo waxa la gadaayo waa baaq ee dadka loo yaqaan bimka mise naayaha gatax mise gadah ee isla yaqaanaan buu igu dhahay waa koodo isticmaalayo dadka indhaha la dadka dhagaha la iyo dadka dhagaha lehba waxa jirta si ay isku fahmaan anagu intiina dhagaha leh waxaan isku fahnaa hadalka dadka indhoolka ayuu waxay ku fahmaan wax ila taabsiyo dadka maartay dhagaha la'ana waxay ku fahmaan in gacmaha lagu hadlo action loo sameeyo waxa hadda ninkan sheegayo dad uu gadaayo Uganda la hadlaya waa baaq uu diraayo
waxyaalahan uu leeyahay malayba bad ku jiro iyo malayba laga soo reeyay dadkiiba wuxuu ka dhigay xoolo dadkii ayuu xoolo ka dhigayaa heblaaya buuran heblaaya caata war xoolo la gadayaa wariilahu ma yaabtay oo sida wanaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlayaa wax kale ma ahee adduun waxaan ka hadlayaa mataqaanaa Soomaalidu moogta dad qiyaali meerna way moogta Soomaalidu kalluunka dalkooda ka baxay ee freeshka ah waxay ka jecel yihiin kalluun jeel laga keeno oo gasacaysan tuunaadka oo gasaca isoo gaday ku leeyihiin asoo fresh oo badda moos oo laga keenay Talyaaniga iyo Kenya ay ka jecel yihiin mooska oo ka baxay afgooye cabitaanka oo freeshka ah waxay ka jecel yihiin yab maxaad ka fahamtay cabitaan intee soo qataan moos bala bala buuf daar carso in shiishaan waxay ka jecel yihiin cabitaan laga keenay dibadda daahir bala bala buuf socdaa waa ina soo wada qortaan daahir meeshiisa taga waani bariya waxaan uga socdaa gabadhii Facebook aad kullu soo qoraya intii video ma daawatay waxa soo qortaan Facebook daadan daahir bala bala buuf soo wada qor kullu macaan waa gabar aftahana ilaahay quraanka soo ku leeyahay intaan abuuro dhan aadanaha oo qurux badan marka waa gabar qurux badan laakiin quruxda marka sifooyinkeeda laga sheekeeyaa rag qabiilada ka sheekeynaya quruxdooda iyo quruxda nuuci ayaa ismiyay gadaashooda iyo soo jeedkooda iyo horaadkooda wuxuu yiri abwaan Soomaaliyeed soo xidhay soo dhigatana way taqaanaa wadadki tawagaas hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baad tahay dhadhan malaha naagaha mid dhicil noqotay dhulka jiifta lama guursaday dherka qaarkii hadday dhuubo way tahana waa raaxa ka dhiman hadday dhuubo way tahana waa raaxa ka dhiman meeshii dhalaanimo yartan anigu dhowraayay oo dhidhilada gacmaha shada dhuucda loo yeela oo ildabeelimiye qurux dhuuxa la iftiinto marka dhaqan iyo lama harin warhoy dhagorta xoolaa inta dahabka lacag dheer yahay dumarku dhaantaay inta dahabku lacag dheer yahay dumarku dhaantaay gabaygaas midin kale waa hagaag waxaan uga socdaa marka naado waa kana shaaban oo buuran oo ama kuuskuusan oo qaarka hor u weyn ninu waxay dhaqankii tahay jiray nina ceebtii tahay anigu ma arkay qurux waxaan wariilahu loo ma yaabtay yiraahdo naado na qurux badan laakiin naado dumar buu u soo fariistay inuu yiraahdo heblaaya qurux badan iyo heblaaya fool xun masawir noocaya ku muuqanaya nin raga laba xiliyooda konta jir ah daa inuu soo fariistay yiraahdo heblaaya qurux badan iyo heblaaya fool xun heblaayo qurux macaan naado aftahan wasida wana intaas ba mataqaana waa waxaan garan kara laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed ee gabadha reer Suudaan le waa qof qurux badan iyo ma la qabaa iyo garoob miya iyo waa ka helay iyo jaceylkeeda ay haye iyo ka warrama markaan eegno gabdhaha Soomaaliyeed Coach's biggest night is back live on June June 27th. waxa ugu daran cimriga qof jooga kaltuun muuse ka warrama qaadayo inta dhir la eg tahay dumar qurux iyo sida ogtaa joogi jamaalkeeda iyo quruxdeeda kaltuun muuse marka aragto ka war tusmo Yoonis isbarbarka tusmo Yoonis gabadha saa u dheer siista mataqaana kaliya sida u eg tahay gabadha ya bila make-up sida u eg tahay kaliya fiiri tusmo Yoonis ya gabadha hooda gareys fiiri sida u eg tahay way gabdhaha Soomaaliyeed oo amaan laada waxaan ku soo gabagabaynayaa ma sii dhamaysan karo oo waxaan wax fool xun ma aha wax ummad Soomaaliyeed loo soo gudbin karo ma ahan gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed waxay daawan karaan waa wax dhaqankeena iyo raganimada waxaan ka hooseeyo aan laga hadli karin inaan gabar ka heshid quruxdeedii iyo farxumadeedii iyo make-upkeeda iyo tii buuran iyo tii caata iyo dheerarkoodii gaabnidooda midaan ka hadli karno malahan dadkan Ilaahay abuuray nin walba Ilaahay dooq u siiyay ragga Soomaaliyeed ee ka helay gabadhaas Suudaanta ah xaq bay u leeyihiin nin kale inuu u wariyana oo u malayn maayo inay u baahan yihiin dhaqanka qofka bini'aadanka waa ajaa'ib ninkan dhaqankiisa anigu waan la yaabay meeluu ka keenay ma garanayo uma Soomaaliyeed dhaqan kuma lahan waxa uu ku hadlayo ummad Soomaaliyeed ee daawatay laagta commentiga iyo subscribe-ka dhinaciina waaye noolaada intay nolol jirto intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aad baad u mahadsantihiin